بسم الله الرحمن الرحيم aad mahadsantiin saxaafada xorta ah ee nagala soo qayb galay shirkan jaraa'id oo aan ku cambaareynayno falkii istirstaagaha ee xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda NISA ay maanta oo 24 December ay tahay ku hor istaagtay saraakiil ka tirsan ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Somali Journalist Syndicates kuwaas oo safar ka ah maanta magaalada Muqdisho xubnaha la hor istaagay waxa kamid ah Maxamed Ibrahim Bulbul anigoo ah Hanad Ali Guuleed iyo qareenka SGS Abdiraxmaan Maxamed Cumar runtii muddo ku dhow 2 saacadood ayaa xuriyada xubnaha NISA ay naga qaadeen isla markaana waxay naga qaateen wixii agab aan haysanay sida taleefanada oo kale isirstaagaas maanta saraakiisha SGS lagu sameeyay waxa uu daba socday hanjabaadyo isdaba joog ah oo xubno ka tirsan hay'adda NISA ka soo baxayay maalmihii la soo dhaafay oo ku wajahnaa xubnaha SGS shaqada ku jira taasoo natiijada maanta marka la noqotay in xubnihii SGS ka dhoofi lahaa garoonka aadan cadde la hor istaago oo loo diido in ay garoonka ay ka dhoofaan taasoo runtii qaanuunka dalka u yeelana baalmarsan falkaas runtii waxa uu ahaa fal hay'addu ay ku doonaysay in ay ku hor istaagto guud ahaan safarkeena taasoo markii dambe ay naga celiyeen waxa horkacay sargaal magaciisa lagu sheegay Mahad oo maalmahanba runtii aan ka hadlaynay arrimihiisii runtii waxaan kaloo aan rabaa inaan u sheego dawladda federaalka Soomaaliya in iscaburinta iyo isirstaaga suxufiyiinta Soomaaliyeed lagu sameeyay 5 sano soo dhaafay laga soo daalay xilligan ay tahay xilligii la dhowri lahaa xaqa xuriyatul qowlka iyo xaqa qofka muwaadinka uu leeyahay inuu safro oo safarkiisa uu sii wato taasoo aan qiyaasayno maanta in xubno ka tirsan SGS loo diiday inay safraan waan ka xunnahay waan cambaareynayna waxaan rabnaa in dawladdu ay ka waantooto beegsiga ay ku hayso ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed SGS Somali Journalist Syndicate isla markaana baaritaan dheeraad ah ku samayso dawladdu sababaha keenay in maanta shaqadii aan lahayn safar lahayn istirstaag lagu sameeyo dhinaca kale waxaan rabnaa in aan halkan ku cambaareyno falkii maanta lagu jirdilay Aweys Bashiir Abdiraxmaan oo ah madaxa wararka wartaalka Arlaadi oo maalmahanba aad uga hadlayay xasradaha ka taagan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay jirdil ayaa lagu geystay kilometer 4 dhinaca Cabdiqaasim ilaa iyo 3 ruux oo hubeysan laba mid kamid ah hubeysana ayaa ka qaatay telefoonkiisa isla markaana jirdil u geystay markuu tagay CID-dan waxa loo sheegay in arintaas la qaadaynin marka waxaan rabnaa in dawladda federaalka Soomaaliya arintaasna jawaab cad ay ka bixiso isla markaana baaritaan ay ku sameyso waan ka xunnahay jirdilka xoogan ee maanta lagu sameeyay Aweys Bashiir Abdiraxmaan oo wartaalka Arlaadi markaas ka tirsan iyadoo maalin cad ay tahay in suxufiyiintii ay magaalada ay ku dhaxfakan waayeen runtii waa nasiib darro waxaan ay muujinaysaa in wali ay sii socdaan tacadiyada ka dhanka ah suxufiyiinta Soomaaliyeed marka waa ka xunnahay dawladda federaalka Soomaaliya oo aan wali sanad jirsan runtii waxa ka soo baxay dhilaha ka soo baxay ma ahan mid farxad gelinaya warbaahinta Soomaaliyeed marka kiiska wariye Bashiir Aweys Bashiir runtii baaritaan waa in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku samaysaa waa ka xunnahay ilaaha u boogdhay aan leenahay jirdil ayaa loo geystay howshiisa way ugu wataa marka dawladda waxaan leenahay dib isku laabta xuriyatul qowlka hala dhooro iyadoo sanad jirin hadii intaan xasrada ay dhacayaan runtii waa wax laga xumaado dhinaca kale waxaan rabnaa inaan sheegno in 4 January sanadka 2023 la qaadi doono kiiskii xogayaha guud Cabdalla Axmed Muumin oo wali ku xaniban magaalada Muqdisho oo dawladdu ay xanibtay in safar u aado isagoo ku xanuunsanay magaalada Muqdisho eheladiisa booqan lahaa hawlihii shaqo ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed SGS qaban lahaana laga hor istaagay marka 4 bishii January sanadka 2023 ayaa la ballansan yahay si public ah ayaa loo dhageysan doonaa saxaafaddu waxa ugu baaqaynaa in maalintaas ay ka soo qayb galaan si live ah ayaa loo qaadi doonaa doo alidmo Cabdalla uu xanuunsan yahay wali magaalada Muqdisho ku sugan yahay awlaadiisa ma booqan karo dhakhtarkiisa oo Nairobi ku suganna ma booqan karo marka waxay cadeynaysaa in wali Cabdalla Muumin uu hoggaansamay sharciga iyo kala dambeynta dalka u yaal marka aad iyo aad u mahadsantihiin